السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي قالي كسر هذا جنال كيك من السكوكين ميل البعدون كجوكتان إن أيوة عف ما تختار رجينا فضلا هدي تمركو جوريس أجل كيك صوب قنيسد وحكى عطسنا إن سبسكرايب نصارتو جنب الكنا فرطة سيمو قالوا بوكو صدعة أما بقى نقطة دعوة وقريب بليس وحيدا كعطسنا ولا لا جنال كيك وحرن فيديو كيك دعونايا إن لايك تيسارتان مرول باللايك تيسارن بدنا وإلا وإيسار ميدين دولار كيسة إن إيسارتان أجعل هدية إلا وحتى way dhiirigelina ii tahay anigana waa ku dhiirinaa in markaas muuqaalo qurux badan aa idin soo geliyo waana mahadsantihiin waxaan idinka sii codsanaa 20 kun wax yar nooga dhiman inaan noo dhamaystirtiin maanta waa buuxin kartiin wax aad iyo aad u yar ka dhiman videoga noo sii share gareeyo waana mahadsantihiin sida wanaagsan ay la socotaan mahadcelintiina marnaba kama daali dooni جزاكم الله خيرنا إذن ليه جسينا جنا الله كده دماتين وقالي قصدي شليتو ميل حساسية كوضي ماشي كسي ودينا إن شاء الله وأنا سوكو كوبا وحنجعله رأيينا مانت إنا توسو صوب حسين يعني والله قالي قصدي وحكو قوضي إهات ما مضي أو المهدي جورج إيه كسوة بحيين أو أي دهنا أنا وكمهين كرنا إن حل راد سو كلنت إيه دهن كدبنا إسكو ده ما مضي إنا رادسو wiilkeedii iyo aabihiisii ayadana cafis ay u weydiisato iyo dhibaatadan ku dhacdayna ay ugu sheekayso ay u sheegto haddii waxa uga qaban karaan sidii u raadisay ada wadooyin badan ee u martay almuhiim yani marka ugu dambeysay way heshay oo way isla hadleen wiilka aabihiisa isla hadleen wiilkeeda isla hadleen xaaladii oo dhan ay uga wada sheekaysay wiilkii aabihiisa waxay soo goosteen flyday soo qaateen way imaadeen magaalada muqdisho imaadeen habartii arkeen xaaladeedii wiilka aad iyo aad muxuu ahaa ugu moraal dalaac markuu hooyadiis xaaladaas oo ku arkay hooyadii way iscelin weysay oohin ay ka bixi weysay markay saas u aragtay yacni afkeedu way ceshan weysay waxay ka dalbatay inay iska cafiyaan inay ka qaldaneed wiilkeeda yacni asagoo hooyanimo u baahan ayadoo muxuu ahaa yacni aan xaqii hooyanimo siinin ay dayacday maantana ilmaheedii ay dayaceen nafsiga horta oo kasoo baxay ay ka gashay ninkii wiilka dhalay iyo wiilkiisa oo ayada wiilkeeda oo yahayba ee nafsi ka wada gashay waxayna ka dalbatay ninkii in wiilkeedii oo la joogo maadaama ilmaheedii kaloo dhan ay wada deeriyeen ay banaanka u soo wada saareen ay dheheen kuma heen karno ee ka dalbatay wiilkeeda inuu asaga xanaaneeyo wiilka wuxuu dhahay hooy ma samayn kariyo dhahay arrintaas aniga oo Soomaaliya ma joogi kari mana la qabsana mana ku soo korno yiri ma ka haya wadankaasana ka diiwaan gashan oo yiri qof shaqo kale oo yacni ka shaqeeyo oo muxuu ahaaye xaq ku lahaa oo yiri aniga Soomaaliya hadda ma joogi kari yacni dariiqad kale ama wada kale inta aaraadinayna kadib wuxuu u tagay gabdho ka mid labadii gabdhood mid ka mid oo u tagay wuxuu dhahay hooyadii iyo haayo yiri 6 bilood ana u soo dhameynaa oo yiri si aan wadanka uga bixin lahaa oo wadi lahaa oo xagga caafimaad ahaan loo geyn lahaa 6daas bilood waxay cunto cabto xirto takhaatiirta oo markaas yacni xaaladeeda oo sii kontrooleyso siyaasan u sii xumaanin oo loo ogaado yacni wax walba oo qarash ku baxay wuxuu yiri anaa soo shuba yiri bil walba lacagtaada iga fiirsi iyo biilkaaga gurigaaga ilmahaaga wax walba aniga bixinayo dhah hooyaday ii siiyay hooyadii sidii uga tagay wiilku uu baxay wadankii uu ku noqday wadanka markuu ku noqday kadib wuxuu muxuu ahaa dawladdu u sheegay in hooyadiis intaas ay ka maqneed ay meel isku haynin ay kala dhumeen xilli hore haddana oo hel hooyadiis ay maanta u baahan tahay xaalad caafimaad ay haysato ayna xanuunsan tahay qof kale oo xanaaneena amaba heenayo oosan jirin inay u keenaan wadanka caafimaad ahaan ugu keenaan oo ay u daaweeyaan taasoo ka codsaday codsigiisa adiga muddo ka soo wareegatay 6 bilood asagana wuxuu isku dayay inuu shaqeeyo shaqooyin oo zaa'id ah yacni shaqada uu shaqeynayo inuu shaqooyinkii ka sii badiyo si markaas asagana hooyada markii la keeno waxaa la dhahay qaar ka mid ah adaa iska bixinaya lamo qaliinka iyo waxa ku kacayo adaa iska bixinaya maadaama xaalad caafimaad ah ku keenaysid hooyada wadanka kadib waxaa dhacday in wixii oo dhan loo wada dhameeyo oo loo ogolaado oo hooyadiisii loo soo wada 6 bilood markii ay dhamaatay kadib maamadu wuu soo wadiyay asagaa keenay wuxuu keenay Kenya keenay kadib asagaa soo wada asagoo wado oo keenay wadankii marka oo keenay Canada oo keenay sidii hooyada yacni waxaa lagu sameeyay qaliima lagu sameeyay xabadii meelihii firirka ay ku bogsoodeen waa laga bixiyay yacni si nadiif ah looga bixiyay ayadoona seed wax gaarin halboolo wax gaarin tan kale oo muxuu ahaaye dareemii muxuu xididada wax gaareen oo saxaradii iyo kaadida wixii yacni oo
aysan kala ogaan karin wixii ay iska wada baxayaan aad iyo aad loogu dadaalay hooyadii adiga way fiicantaa alxamdulillah oo yiri hooyadee maasha allah caafimaadkeeda 100% oo noqdo dhahay meeshiina noqotay ilaa ay ka baansato inay sii joogto yani ilaa caafimaadkeeda heer sare oo ka noqdo inay joogto aan isku dayno yiri hooyadee markii xaaladeeda ay soo roonaatay qaliimo kaleento baba oo yani gaagaabana xitaa loo baahday oo waliba muxuu ahay in lagu dadaalayo in ay markaas xitaa ay kici karto ay socon karto waa la isku dayay xitaa waxaa keeno yiri jarmalka keeno oo lagu tilmaamo yiri taqaatiir fiican oo takhasus u leh laakiinse waxaa lahay intaas wax lagama qaban karo laakiinse wuxuu yiri alxamdulillah firarkii waa laga bixiyay oo korkeeda ku wada jiray wixii isku dareysayna alxamdulillah oo yiri hadda way fiicantahay xididda qaar iyo waxyaaba muxuu ahaay inta la dhaliyay la isku kakabay ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay daawo ugu daro dhahay daawadii markaas ay siiyeen oo dhahay wayna caafimaad hooyadii caafimaadkeedana 100% waay aabe wuxuu yiri 20 sano aniga ajiro yiri naag ma uusan guursan oo dhahay laakiinse aabeena waxaan kula taliyay in hadda iyo wixii ka dambeeyo oo guursada naag aabeena oo guursado dhahay xaasoo yeeshtay aniga sidoo kale inta xaasan yeeshto yiri hooyadeena aniga ila noosha oo guriga ila nooshahay igula nooshahay maadaama aan dhahay markii xaaladaada caafimaadka wixii oo dhan way ku idlaadeen wadankiya kugu celinaa gabadhaada la joogaysa biilkaaga iyo waxaaga oo dhan aniga ku soo diraa yiri bil walba wax yani oo aan ka naaqsinayo ma jirto wax allaal waxa u baahan tahayna waa soo dalban kartaa sanadkii ama labadii sano wixii ay noqotaba adiga waa ku imaana waa kusoo ziyaarina xaaladaada waa ka warheena laakiin hooyadii way ooysay markii asaas dhoo dhahay waxayna iga codsatay ina ayada yani anaga ay nala joogto oo aniga ay la joogto maadaama ayada shalayto ay iga yani iga xarimtay yani ay isiinin xaqaygii oo hooyanimo ayada aan ku lahay hadda waxay leedahay ma rabay tiro inaan tago meeshaas ilmahaasna u tago oo shalayta i dayaceen adigoona yani aan hooyanimo xaqeeda aan ku siinin maanta isoo qaaday isoo xambaartay i keentay xaaladeedii caafimaadkaygii ilaah subxaana wa tacaala caafimaadka adigana waxaa u noqotay tiri caafimaadkayga maanta sababa u noqotay heerkan maanta aad taaganayn wiilkaygii oo adiga i gaarsiiyey hooyaday waxay iga codsatay waxaan ku baryaa xitaa haddii aan dhimanaya tiri aniga agtaada inaan ku dhinto moogay ma rabiyey tiri inaan u noqday dhahday dhammaan hadda wixii oo dhan iskugu soo wada duuduub hooyaday wuxuu yiri anageena la nooshahay oo caafimaadkeedina maasha allah aniga reeraa yeeshtoo dhahay anigeena nooshahay aniga iyo xaaskaygana maasha allah waa xaas baariyadoo dhahay wadanka Canada aan ku wada noolnahay dhammaanteena hooyadeena ana ila nooshahay aabaheena gooniyo u nool yahay aabahe uu iska cafiyo hooyadee anigana waaba cafiyo waaba hooyadeeba khalad horta waa dhacaa bini'aadankana way qaldamaan ilaah subxaana wa tacaala qalad gelin oo leeyahay laakiin hooyooyinka Soomaaliyeed dhammaan waxay wiilkan iyo hooyadiis idin soo jeedinayaan qofka adiga ama dhal ama waalid ha ku ahaada inaadan bukaanka aadan ku nicin oo aadan ku tuurin xanuunka berita maanta asaga ay berita adiga inuu kugu dhaca laga yaabaa wax walba ee noqoto qadarta ilaahay inaan ku sabarno oo sabarkeenan lagu imtixaanaa ilaahay caafimaad yani uma waynin dadka xanuunsan dadka naafada ee ilaahaya lixdooda lixaad inuu siiyo uma waynin laakiinse kuwa lixdooda lixaad qaba aa lagu imtixaana oo samirkoodana lagu fiirna heerka uu taagan yahay marka walaaleyga qaaliga ah qisadan waa qiso aad iyo aad u muhiim ah murugo way ku bilaabatay ahayd laakiinse hadda waxay kusoo dhamaatay farxad ay kusoo dhamaatay ayadoo la soo wada cafiyay oo cafi iyo masaamax la soo wada dhahay hooyadii ay u furtay wiilkeeda laabteedii haddana asaga oo wiilkeedii soo aruursaday hooyadiisa caafimaadkeedii wax walbo asaga maanta ay sabab u noqotay cunugii ay shalayta tuurtay waaye shalayta ayada waxay ka raacday ninkii ay jecleed ninka wuuba dhintay asaga wuu dhintay wax dambiya ma laha laakiinse ilmihii maanta jeceelaa lagu dhalla dhahay ayada soo korisay dhabteeda ee kusoo qaaday dusheeda ee kusoo qaaday ee u kufeysay u dhaceysay dhididkeeda ee kusoo korisay abaalkeeda maanta maxay ka dhigeen inay soo dhahaan maxay ahayd oo annaga ma ku heen karno annaga yacni familkeena iyo caruurteenana ka badin karin ee hooyo saa isku dibiri kartid isku dibir inay dhahaan wiilkii ee dayacday oo intaasoo sano cidlanimo xanuun iyo muxuu ahaay kalinimo يعني كسو كوري أو جعل هوي نما أركن حريص هوي نما أنا أركن ما أنت إله محو قدري إنه لحد هوي دي حرته أو صبح أو إماضة يعني داوين كذا وحيد يقولنا نرشيد أو يعني كفالة قاضي أو ودنك أو جيو نول قرح بدنا ما أنت يكونوش أين هوي ده أسمانت كشي كينيسو أين كقوم مينيسو لبعض دي شلت ويل كذا وكيسته إياه نين كذا هرا
hooyadii wuxuu leeyahay maanta waxay ka shalaynaysaa haddii aabbaha aan isla wada joogi lahayn oo intaasoo caruurna maanta u dhan lahaayay tiri dhammaan waxay ii wada noqon lahaayeen ay tiri sida adigoo kaleento oo baariyaal oo isoo aruursan lahaa ay noqon lahaayeen laakiinse mar walba waxaa fiican haddii xitaa qof aa isjecleedeen mar haddii qof kale lagugu daro jaceylku wuu jiraa laakiin sidiisaba calafkaa ka weyn inaa iska ilaawdaa fiican wixii hore aadan gadaal u raacin nolosha markaas aa ku jirtid aa fiirsatid iyo wixii ilaahay subxaana watacaala kaa siiyo marka walaalay qaaliga ah qisada haddii aa ka heshaan sii share gareeya like badanna noo saara waana mahadsantiin sida wanaagsanaa mar walba ila socotaan jasaakum allahu khayrna idin leeyahay se idinla tahay wiilkaas waxa uu sameeyey wax fiican miyaa hooyadaas sidii ay sameysay balka warama ilmaheediina si ayadana ugu abaalgudeen waxaa la dhahay nafsiga gelin haddaa gashidna berita aduu kugu soo noqonaa marka waa kanaa walaalay qaaliga ah ilmahaaga adoo wada dhalay ma ogaan kartid midka kuu fiican iyo midka kuu xun waxaa laga yaabaa midka adiga aa xigsanaysid inuu noqdo midka adiga beritaya musiibo ku guridi lahay ka adiga dayacday ama aa tuurtay ama aa riixdana uu noqonayo sida wiilkan oo kaleento maasha allah subxaan allah yani waa arrin cajiib oo mucjiso la waaye ilaah subxaana watacaala waalidiintiisa horta ha u dhaafo wuxuuna idinsoo wada jeedinaa mar walba oona idinkula talinaa wax walba ilaah subxaana watacaala oo idin siiyo ku xamdiyo ku shukriya waana mahadsantihiin oo leeyahay asxaabta ku xiran janalka Muneza wuuna idin wada salaama waana mahadsantihiin idinkana insha allah walaalkeena qisadaas aadkii aadka u qiimaha badan oo maanta nala soo wadaagay ahayd meeshaan jag uga soo siinay oo kusoo gabagabeynay wixii fikirkiina hoos noogu reeb inta videoga mid lamid ah ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu like taanaga ilaawinaya marwalba inaa like kusoo celceliyo waay maca salaam fi amaan